kolonyo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeeray dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar oo meel wanaagsan maraysa. ujeedka kormeerkan ayaa ahaa mid uu gudoomiye Cumar Filish ugu kuurgalay sida ay u socoto dib u dhiska wadadaasi oo ah mid ay baahi weyn u qabeen bulshada labada gobol maadaama isticmaalkeeda dhibaatooyin kala duwan lagu qabay. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gudoomiyaha degmada Balcad ayaa deegaanka Ceelyaale ku soo dhaweeyay kolonyada duqa magaalada Muqdisho waxa ayna si wada jira warbixin uga dhageysteen howlwadeenada ku hoolan dib u dhiska lagu sameynayo wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar. kormeerkaasi kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa uu xarig ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay xaafadda Jamaal ee deegaanka Ceelyaale kaas oo loogu talagalay in lagu daweeyo hooyada iyo dhalaanka. gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay. mudane gudoomiyaha ku soo dhawaada deegaankiini idin sheegamayno idin dhihimayno meeshaan waa xamar iyo waa Shabeellada Dhexe idin dhihimayno labadiinaba gudoomiyaha ka tihiin hadda xamar joogtana gudoomiyaha ka tahay hadda Shabeellada Dhexe joogtana gudoomiyaha ka tahay deegaanka waa deegaankiini dadkana waa dadkiini xogay gudoomiyaha waxa ula jeedaa Cumar Filish saaxiibkay waxa ula jeedaa hal qodob qaraabada amba deegaanka ku naqnaqda jiro dadkan deegaankan degan goofkooda ugu horeeyay wuxuu ku yiilay Afriirdood si loo soo riixay meesha maanta joogaan haddana waxa bilaabatay in degmo beel la yiraahdo Gubadley iyo beel la yiraahdo Daarusalaam iyo beel la yiraahdo meel halkaas ay bilaabatay. marka waxa isleeyahay dadkan beelin inta laga gudbiyo degmo la sii xaq u leeyihiin adigana soo dhaw waxay ka rabaan garabkaada la galo. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meher Makraan waxa uu ku dardaarmay in la isku tashto oo danta guud loo istaago. sida aad maartay isugu tashateen sida aad wax u qabsateen adduunyada oo dhanna waa intaas in contribution la sameeyo la isku tashto waxyaabaha loo baahaya ama waxbarashadu ha noqoto ama caafimaad ka noqdo wuxuu ka mid yahay nolosha bini'aadanka sida aad ugu fikirayso gurigaaga iyo reerkaaga inaad saddex waqti ilmahaaga iyo reerkaaga ay wax xuraan sidaad uga fikirayso ayay noloshana looga baahanyaa. markee haddaad xanuunsato meeshaad caafimaad u tegi lahayd cunugaaga meesha wax ka bara lahay waxay ka mid tahay qayb ka mida nolosha adiga gurigaaga qayb ka mida waa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ka hadlay baahida loo qabay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar. waxa xoog la saaray sidii wada lagu heli lahaa waxa lala kaashaday walaalaha Carbeed iyo walaalaha Turkiga oo ah Soomaalida maantay burburku ku dhacay oo dhibaatadu ku dhacday kuwa ugu dhow xagga danqadka ugu danqashada badan. qolo waxay qaadatay inay budgetkii ama dhaqaalihii bixiso lagu dhisayo wadada haddii aan lahayd wadada Afgooye Xamar iyo haddii aan lahayd wadada Jowhar iyo Xamar. qolana waxay qaadatay oo naf iyo maal iyo dhiigba u horeen sida wadooyinkaas ku dhismi lahaayeen. waxaad ogtihiin wadadan hadda socota ee ka soo bilaabmatay ex control Balcad ee Xamar una socotay Jowhar wadadii ka horeysay ee ay dhiseen kambaniganu inay ahayd wadada u dhaxaysa Afgooye iyo Xamar. waxaad ogtihiin dhibaatada ka soo gaartay kambanigaas iyo ciidamadii la shaqeynay. waxaan uga mahad celinayaa inaysan marna niyad jabin oo shaqadooda ay sii wateen dhammaystireenna. waxaan uga mahad celinayaa sidoo kale inay wadadan kale si niyad same ah oo dardar ah ay ku wadaan. waxaan rabaa inaan halkaan ayagana uga mahad celiyo dadka deegaankan oo u soo jeeda inay ayagu ilaashadaan wadada oo kambaniga horumarka gaarsiinaya deegaankooda inaan la dhibaatayn kala shaqeeya. runtii
soomaalida waxay tiraa ilmo qumana quraan loo dhigaa dad hanuunsan ayaa la horumarin karaa hanuunkiinnii waa muuqdaa wuxuu yidhi maalgashigu wuxuu u baahan yahay kalsooni abuur ayuu u baahan yahay dalka soomaaliya oo dhan waa hodan qayb kasta oo ummadu ku horumarto ayuu hodan ka yahay ama ha ahaato xoolaha nool ama ha ahaato dhulbeereedka ama ha ahaato kalluumaysiga ama ha ahaato khayraadka kale ee dhulka gudihiisa ku jira sida uu u yaallo iyo sida uu hodan u yahay aad ay u kala duwan tahay waxaa loo baahan yahay marka maxay tahay dadkii maalgashan lahaa oo horumarin lahaa inay helaan kalsooni inay yacnii si kalsooni ah ay ku maalgashan karaan ilaa qofku hantidiisa meesha uu gelinayo waa inuu ku kalsoon yahay marka kalsoonidaasu maxay tahay waa inay helaan kalsooni garsoor iyo kalsooni amni inuu heli karo garsoor saxa oo xuquuqdiisa u ilaaliya awood amni oo fuli karta garsoorkaas labadaas ayaa waddankeen inuu maalgashi dhammaystiran uu helo ay ku xidhan tahay ama ha ahaato tuulo ama ha ahaato caasimad ama ha ahaato meelo kale kulligood waa wax isku wada xidhan wa deegaankan marka waxaa laga rabaa inay dadkiisu intaas ay ogaadaan oo aan dadka yacni musaafirka ah ee waddada mara ama dadka ayaga la nool inaan lagu xadgudbin oo ay raaxeen nolol dareemaan nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.